السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sagaalka wadan ee leh hubka nukliyeerka Mareykanka. Wadanka Mareykanka waa wadankii ugu horeeyay ee sameystay hubka nukliyeerka, wuxuuna markii ugu horeysay tijaabiyay 7 Agoosto 1945 markii uu ku dhuftay magaalada Hiroshima oo ku taala wadanka Japan nukliyeer cabirkiisu oo dhamaa 15,000 oo kiilootan, kaasoo loogu magac daray Little Boy ama wiilkii yaraa. wuxuuna wadanka Mareykanka haystaa xaddi dhan 7,000 oo madaxyada nukliyeerka ah. sidoo kale wadanka Mareykanka wuxuu sameeyay 13 jeer oo tijaabooyin hub nukliyeer ah. Ruushka. wadanka Ruushka wuxuu ahaa wadankii labaad ee sameystay hubka nukliyeerka xilligii uu ka mid ka ahaa Midowgii Sofiyeeti, wuxuuna markii ugu horeysay tijaabiyay 29 Agoosto 1949 nukliyeer cabirkiisu oo dhamaa 20,000 oo kiilootan. waana wadankii sameeyay nukliyeerkii ugu xoog badnaa caalamka ee Taser Bomb, taasoo 4,000 oo jeer ka xoog badneed nukliyeerkii lagu dhuftay Hiroshima. wuxuuna wadanka Ruushka haystaa 8,000 oo madaxyada nukliyeerka ah. sidoo kale wuxuu sameeyay 1,000 jeer oo tijaabooyin hub nukliyeer ah. Ingiriiska. wadanka Ingiriiska wuxuu ahaa wadankii saddexaad ee sameystay hubka nukliyeerka, wuxuuna markii ugu horeysay tijaabiyay 3 bishii tobnaad 1952 nukliyeer cabirkiisu oo dhamaa 12,000 oo kiilootan. wuxuuna leeyahay wadanka Ingiriiska 215 madaxyada nukliyeerka ah. sidoo kale wuxuu sameeyay 45 jeer oo tijaabooyin hub nukliyeer ah. Faransa. wadanka Faransa waa wadankii afaraad ee sameystay hubka nukliyeerka, wuxuuna markii ugu horeysay tijaabiyay 13 Febraayo 1960 nukliyeer cabirkiisu oo dhamaa 70,000 oo kiilootan. waana wadankii sameeyay tijaabadii koowaad ee nukliyeertii ugu xoog badneed caalamka, maadaama cabirkeedu uu ahaa 70,000 oo kiilootan. wadanka Faransa wuxuu haystaa 300 oo madaxyada nukliyeerka ah. sidoo kalena wuxuu sameeyay 210 jeer oo tijaabooyin hub nukliyeer ah. China. wadanka China waa wadankii shanaad ee sameystay hubka nukliyeerka, wuxuuna markii ugu horeysay tijaabiyay 16 bishii tobnaad 1964 nukliyeer cabirkiisu oo dhamaa 22,000 oo kiilootan. wuxuuna leeyahay wadanka China 260 madaxyada nukliyeer ah. sidoo kalena wuxuu sameeyay 45 jeer oo tijaabooyin nukliyeer ah. India. wadanka India waa wadankii lixaad ee sameystay hubka nukliyeerka, wuxuuna markii ugu horeysay tijaabiyay 18 May 1974 nukliyeer cabirkiisu oo dhamaa 12,000 oo kiilootan. wuxuuna leeyahay 100 madaxyada nukliyeer ah. wuxuuna sameeyay 6 jeer oo tijaabooyin hub nukliyeer ah. Pakistan. wadanka Pakistan waa wadankii toddobaad ee sameystay hubka nukliyeerka, wuxuuna markii ugu horeysay tijaabiyay 28 May 1998 nukliyeer cabirkiisu oo dhamaa 10,000 oo kiilootan. wuxuuna leeyahay wadanka Pakistan 150 madaxyada nukliyeer ah. sidoo kalena wuxuu sameeyay 6 jeer oo tijaabooyin hub nukliyeer ah. Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Waqooyi waa wadankii sideedaad ee sameystay hubka nukliyeerka, wuxuuna markii ugu horeysay tijaabiyay 9 bishii tobnaad 2006 nukliyeer cabirkiisu oo dhamaa 2,000 oo kiilootan. waxayna haysataa wadanka Kuuriyada Waqooyi 70 madaxyada nukliyeer ah, waxayna sameysay 6 jeer oo tijaabooyin nukliyeer ah. Israa'iil. waa wadanka sagaalaad ee leh quwadda nukliyeerka, waana wadan qariyo nukliyeerkiisa, waxaana la sheegaa inuu nukliyeerka Faransa sheer ku lahaa. sidoo kalena uu madaxyo badan oo hub nukliyeer ah kasoo iibsaday wadanka Mareykanka, waxaana lagu qiyaasaa tirada madaxyada nukliyeerka ee wadanka Israa'iil 200 oo madax.